waxaan mahad celinayaa dadka soo qaban qaabiye xafladan oo ay dumarku ugu horeeyaan iyo dhalinyarada waxaan jecelahay in aan ku soo dhaweeyo marka hore Salabaan Jirdaaw Cali warahmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin qaaliya oo halkan ugu dabaaldegayno ururkii horseed farxad weyn bay noo tahay kolley xafladu way sii soconayaan waa bilowgii in badanna waan wadi doonaa insha allah gudoomiye ku-xigeenka waliba dee saaxiibkaya maasha allah waxaan ku farxa weeye ilaahay waxaan uga baryayaa in dee hoggaanka ugu sarreeya ay gaadhaan dadkana hoggaamiyaan annaguna aanu la shaqayno marka aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dadka sharafta la yimid aad baanad u mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan yahay Major General laakiin Yurub oo dhan ugaasa guud ee Somaliland iyo beelaha Somaliland ugaas Haroon ayaa markaa ku soo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد marka hore ilaahay baa mahadle inuu kulansiiyay inagu caafimaad qabna ilaahay baa u mahadnaqaynaa inta xanuunsanayna waxa leeyahay caafimaad degdeg ah amiin inta aad ku dhaafo maanta waxaan u mahad celinayaa dadka soo qaban qaabiyay xafladan aynu ku soo dhaweynayno gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horseed waa Maxamed Xasan Sheekh Muumin محمد haddii aan in yar ka sheekeeyo maxamed waa nin akhlaaqdiisa inta ilaahay bil aadan siiyay u dhammaystiray weeyii Maxamed Cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. waxaan marka hore salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka waxaan kaloo salaamayaa marwooyinka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dadkiina sharafta leh ka soo qayb galay halkan waxaan jecelahay inaan hadal badan oo dhan oo ay hadalkii wax dhamaystayba ugaaskii baa wixii laacday wixii galmay waxba ka mutigi laakiin dhowr erayo gaagaaban baan doonaya in dhahdo marka hore waxaan leeyahay hor Trace Somaliland hambaliyo statement waliba sii muuqata statement May waliba dhammaan hambaliyadii iyo dabaaldegii waliba ku jiraa marka ilaahayna waxaan uga baryaynaa waqti wanaagsan in ku dambeyn doonto waxa kaloo halkan uga dareynaa baaq in ilaahay dagaalada ayakana inaga qaboojiyo iyo xasarada meesha ka taagan xukuumaduna inay xal keento oo hawshaasi laga soo naga dhamaato insha Allah hadalka ma kicin in khudbad dheer jeediyo laakiin waxaan erey ka oranayaa Maxamed Xasan Sheekh Muumin oo muddo dheer isnaqaanay Soomaalidu waxay ku maamahdaa rag laba u daran nin taagan oo la tirin iyo nin tagay oo aan la tabin halkan markuu naga tagay aad baan u tabnay intan diin ka bartay isaga waxay ugu dambeysay macallinkii quraanka intan diin isaga ka bartay diin halkaas uu ka taagan yahay de aqoonna waa aqoonyahan sare oo inuu ognataan mar kuma jiro imikana wax ku darsay siyaasad loo fadhiyo maayo marka waxaynu ururada iyo xisbiyada u samaysanay inaynu kaga maaranno qabyaaladii iyo baalihii iyo wixii xumaa marka in dadku ay dhiirigeliyaan ururada iyo xisbiyada inay hana qaadaan
oo ay meel fog gaadhaan waa waajibkeena inankaana mas'uulka ah oo aynu kaga maaranno isjiijiyadii qabyaaladii oo dadku isugu yimaado qofkii meesha geeya xisbigan ururkan horseed waxa weeye waa garanaysaan Cabdilaahi Darawal iyo Maxamed oo soo raacay ya maxaa kale ku sheegi karaa labada shakhsiyadood meesha mariya marka in la dhiirigeliyo oo aynu ururadeenna dhiirigelino kana saaro imika jirto waxaad maqlaysaa waa marka tiraado mushkiladu waxa weeye waxaad maqlaysaa ururkii hebel in laga saaro ururkii hebel ma ururka marka la sameeyo waxa loo sameeyo dadka oo dhan jooguna wuu isbedelay imika doorashooyinkii ugu dambeeyay waxa footiyay dhalinyaradii oo 70% reerayna way ka tageen dadkii u footiyay waa garanaysaa marka in dadka isla kamid ah odayada magaaladan aynu joogno injineer Maxamed Muuse soo dhaweynaya gudoomiye ku-xigeenka ururka horseed iyo dhammaan dadka martishaafta ah ee ka soo qayb galay inta kadib taariikhdii gudoomiyaha iyo xafladdu waxay ahayd baa waa la sheegay inaynu hadalka ku soo celcelino maaha marka waxaan u yeeri doonaa Faadimo Sultaan Maxamed Sultaan Faarax salaamaya dhammaan xafladda quruxda badan leh ee sharafta leh iyo dadweynaha sharafta leh ee isugu yimid taageerada xisbiga siyaasadeedka horseed gudoomiyahana waan salaamayaa marwadiisa iyo marwadii gudoomiyaha urur siyaasadeedka xasoro iyaguna fadhiya meesha dhammaantood dadweynaha wada salaamay horta waa mahadnaqon baan kollay anigu oranayaa waan ku faraxsanahay ilaahay insha Allah bidnillaahi karim waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo xisbigan ka dalka hogaamiya waan u qalmaan labada nin ee meesha hogaaminaya insha Allah bidnillaahi xaqna waa u leeyahay waliba anagu horta dan qoladan gobolka Hawd ya beelaha Soomaaliland oo waxaan ka codsanaynaa inay naga doortaan ya aqbaan u leeyahay ya waa markaygu baan maqli jiray laakiin marka aadban salaamaya dhammaantiin Soomaaliland guul baan rajaynayaa insha Allah iyo gobonimo ilaahay nabadgelyadana ha inoo adkeeyo ilaahay colaadaha iyo dhibaatooyinka taagan ay naga dul qaado waa duceynaynaa dadkeena iyo dalkeena insha Allah bidnillaahi kariim aadban salaamaya dhammaantiin markana waxa ku soo dhaweyn doonaa Khadra Xuseen Dhallah horta aad iyo aad baan idin wada salaamayaa mudaniya marwooyinba aad iyo aad baad mahadsantihiin sida fiican uga soo qayb gasheen martiqaadka gudoomiye ku-xigeenka ururka horseed aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa horta kolley hawl badan baa inoo taalo imika waa bilow imika waa isbarashadeeni laakiin insha Allah ururka daafurkiisii baa soo socda halkaas hawl badan ka soo baxaysa dad badan oo fara badan oo reer Soomaaliland maanta in badan baa dad shacabka u garaacnay hadda annaga naloo garaacaya idina ku kala gala marka tii aanu idiin sameyn jiray teedii baa laydinka filaya waa sida weeye annaguna diyaar baanu u nahay in wax laaliyo wixii aanu qaban karno aanu qabanno idinkana xagga codkiinii iyo dadaalkii aanu markiina sameyn jiray teedii baa laydinka sugaya marka wax badan halkan oran maayo daafurkii baa inoo soo socda taasaynu waxyaabo badan isku weydaarsan doonaa inuu kaga wada hadli doonaa martidu maar jeclay inaan mahad celiyo ka soo qaybgalkiina sida uu sharafta leh noogu timaadeen aad baa mahadsantiin dhammaantiin assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الكيد دبان ولا وديري دبتانو halkan waxaan u joogaa mahadnaq aan ugu mahadnaqayo xafladan iyada maanta ku qabsoontay London marka anagoo waliba saaxiiba Maxamed oo aad iyo aad saaxiib u ah muddo badan wada soconay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ka soo qaybgalka aan ka soo qayb galay waliba anigu xafladan iyada ilaahay wixii dhibaato ah ee wadankeena haysta ilaahay naga qaboojiyo waxaan u yeeri doonaa markan Khadar Digle marwada mustaqbalka insha Allah ta'ala qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marwa ifraax oo aan leeyahay الله يحفظك إلهي هكو إلاليو الله هكو حفتيو إن شاء الله تعالى ما أنت كون هكسنا
ilaahay ha isku keensimo biidni illaahi kariim adigoo ah marwadii qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa aan guud ahaan halkan ka hambalyeynayaa qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ay ahayd xafladoodii 32aad sanad guuradoodii 32aad ee ay ku soo gaadheen dadaalka iyo sabirka iyo isku duubnida qaranka jamhuuriyadda somalilan meel kastoo joogaan ba waxaan leeyahay ambalyo waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaya oo aan leeyahay garabkiinaanu nahay annagoo London joogna frontline-kaanu idinkula jirnaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee heeganka u ah difaaca qaranka jamhuuriyadda somalilan hariya habeena u taagan waxaan leeyahay wallaahi garabkiinaanu taaganahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجح سمعنا نقولين هذا الكلام كيو إلى قاضي. لكن كل واحد سودوينون مركو قرص عن سودوين يعني حفلة تارنت هاي كدوم كحيانك محمد حسن شيخ مؤمن يوم مرودا نفرن إنه نقطة مرودا كوذا قرن كسال الشيء فرح محمد حسين وحنا سيجارو ما هالغيا حبني سوق بقابدي حفلتن إنه نوصل توقشوا هربوت كوهد روضة أنا فرحت قاري تهاي وايو عبد الله قدوميه هاين والروسيا سدات كاين حسين عبد الله حسين إيمان وأنا نقول بتصور الشقيني وأنا نقول صاحب حري وأنا نقول جيسا كون شري أو أي مامنا هيد فرح دل كنا ماشي لقى صوب بلعبي وح هجامي كرون وحويه قف كرنا يا حكوا كصوب بلعبي ولا حجالك قبا واحد الحسوسي كرا مجاهد عبد الله حسين إيمان دتكوا مجاهد بيرح لكن صدق مرحلة ضوء سومالنا سومرتين صدق ضبع وخلاص ضبع شيء وحوهانين هلجن كي قدرة هرمودها أو أصول دجال قبل شديد دل كان هرمودها وحوها نينكسو قيب قاتي نبضينتي سجلانتينا هديانو هجامينين وزارة الجاشاندية iyo dawladda xilliga tirtay dagaal badan oo sokayo dalka ka dhacay may suurta gasheen hadii aanu Cabdilaahi ahayn ka fahmaya sida ragaysu soo jeedo loola hadlayo oo mujaahidiintiisa ahaa tasaddexaadna waxay ahayd dibadejintii dalka waayo dal burburay oo qaxoonti laga soo noqday ayuu Cabdilaahi waxa loo dhiibay wasaaradii dibadejinta taasoo iyaduna hawl adag ka qabtay oo dad badan ay marxaad uga yihiin soo celintii qaxoontiyada iyo waxyaabo fara badan marka Cabdilaahi sidaasuu u yahay nin xaq u leh in la garab istaago oo la taageero oo loo abaalgudo waxa isaguna aan ku xigsiinayaa gudoomiye ku-xigeenkiisa Maxamed Xasan Sheekh Muumin isaguna de abaal buu nagu leeyahay abwaankeeni weyna Xasan Sheekh Muumin baa dhalay anigu markan madaxtooyada ka shaqeyn jiray xilliga cigaalo rag badan oo iskarana markaanu khamiista nasanayna doonayna inaan iska nasano booramaanu tagi jirnay guriga Xasan Sheekh Muumin ayaan tagi jirnay marka farxad gaar ay tahay inaan maanta aan halkan ay marwo faraxnay hor fadhido oo aan soo wada aasaasnay in xisbigii ugu horeeyay dalka loo sameeyo udub oo aan hawlwadeennadiisa ka ahaa number 3 sidaan u yaray hamoodina inaan daayaray marka farxadaas ayaan maanta anugu aanan ay kaga duwanahay intiina kale marka waxaan kaliya oo kaga baxay hadalka dardaaran aan la dardaaray qurbo joogta waayo mushkiladda dalka ka jirta waxa ay ka socotaa waa dadka qurbo joogta weeye dadka qurbo joogta ee aan tacab badan ka galin marka aan meelaha ku doodanay dadka qaar ilaahan dagaal baa dhacaya amba in xisbigana wax loo diiday amba ay kala dhacaya su'aal baa weydiiyay waxaan 1988 xagee joogtay markaasuu igu dhaca Carabaha mujaahid khadar kood gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horseed Maxamed Xasan Sheekh Muumin ugaas Haaruun Maxamed Cabdiraxmaan Xasan odayaasha abaabulayaasha
xafladan quruxda badan noo soo abaabulay martay sharafta kale ee xafladan ka soo qayb gashay dhammaan waxaan idinku salaamayaa islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka badin maayo inun baan u soo kacay qura dad badanna way hadleen maxamed markan dalka yimi halkan Wembley Park baan ugu tagi jiray isaga iyo aadan dheereeyeen Cabdiraxmaan iyo Maxamed Yunusi iyo halkan moogta halkaasaan ku bartay waan ku farxay runtii markii la igu yiri gudoomiye ku-xigeenka warsiyaadka warseed weeye moogta anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye UK xisbiga kulmiyana waxa ka go'an oo mar walba ka go'an in dimuqraadiyadaasi xoogaysato oo fido oo 10 sano mar la qabto in ururadu furmaan tii horena isaga qabtay xisbiga kulmiye maantana isaga qabtay nasiib wanaag waxaana soo baxay 10 urur وإلهي مهدي حسبك هرسات وكمل هذا دي بقول صار نقطة قدومي كحييك محمد حاج شيخ مؤمن محمد شيخ حسن مؤمن وأنا نصاحبنا هاي وأنا مقالة ودتجنين وأننا نحاول الصوت قبلنا ويا وانين ميرول ببوحينيه ميرول بقدومي كحيانك وانين ببوحينيه aqoontan u leeyahay horta waanina aqoonyahan oo cilmiga beeraha bartay shahaadad laba koowaad iyo labaad ku qaatay dalkeenuna maanta beeriyo xul u baahayo aqoonta loogu tagi maayo dadkeeni diintu ku xoogaysato maantana sheekh kasto masaajid soo fariista isaga ka miisaan weyn waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka horseed Professor Maxamed Xasan Sheekh Muumin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad horta waad iga farxiseen Allah idinka farxiyo yani qaban qaabada aad sida wanaagsan u soo agaasintiin oo waliba dumarku waxa ugu horeeyaan dadaalka dumarka wax dhaqaajiyo runtii marka dhulkii la tago iyo rag baa aad u soo dadaasheen sida loogu soo dhaweyn lahaydeen ee ma ogtahay xusbiga horseed oo والله markii dadkeenu evaluations wada sameeyeen la yiri waa ka kaliya ee caqabadaha ay naga saari karo intii heesta ayaa xataa sheegto tiriyoo Cabdillaahi Dawid joogtaa ifraaxe runtii ninka heesta sameeyay nin Cabdillaahi yaqaano ahaa nin yani in laga saari kara hadii Ilaahay la qabto runtii Cabdillaahi marka hadalkaydu ku badin maayo aanu mid baan oran insha Allah midaan oranayaa waxa weeyeen iskama raacin uun horta xusbiga horseed Cabdillaahi evaluation badan oo sameeyay waxaan arkay inuu ninka kaliya yani ummad inta lagu hogaamiyo leh ummad inta lagu hogaamiyo nin leh waa nin xishooda waa nin wax loo sheegi karo waa nin la oran karo waad qaldan tahay وأن اللوانين كرو مدحت أفريقيا واتقالان بدي وحيو بديهين شقد وحبو شيكي مركا طلبات موقتها عن كل راعينا يعني أنتي دبت كتبي أو كندا يا بدن مريكان أو أنت يدي ده وحبرتي دبت كتبي يوم بيل وذا جوتي أو من عرقابه إلا يبو وقتها لو يعدها أيها وحيدا هين نين كامر كان لسه شقيني واني كان نقولي واني أنا واسكري بان هيدي كأقونتي هي وحوضا تصدحات كنت دور لي هرتا أبهاي طول الدبل الله والحارس يا حسن شيخ مومن لما نقولي لما دار الأسيتك ويقول سلام وعبد الله يدق ويدق شنتي أو ده تاسنا وكل راعي إيلا تأفراد كل راعي وحكم ذا عبد الرحمن وعلي بيقولوا ولي ونين غير كي لا يقصي برياسين حسق هذا
markii aanu ninkii u fiirsaday waa nin alla yaqaana waa nin qabow waa nin raxan badan lahayn waa nin degan waa nin qabow waa nin personality type-kiisu ay tahay tu cidiba ayna ka tegi karin wallaahi had ninkii ag jooga ay cidina ka tegi waa nin aan arkay markaan waddankeennii arkay waa waddankeennu wuxuu ka bilaabay zero yani iyadoo waddankoo dhani wada dunsan yahay oon mucaawano badan la siin ayuu dimuqraadiyaddii ugu weynayd qaatay in madaxweynaha dadku doortaan weli dee jabuutiya waa taqaanaa soomaaliya iyo etoobiyaba intaa weliba ay karin iyadoo waddanku dunsan yahay haddana inay qaataan odayaashii 60kii joogay buu ilaahay inoo daayey markay inoo taageen noo wada dhinteen balaa waxaa sii nool hadda u malaynayaa ina shacri jawhar intii kale allah yarxamuhum dimuqraadiyaddii sidaa ku bilaabantay oo ilaa hadda gurguurad ku jirto socota dee halganka ilaahay baa sunnatullaahi fii khalqihi adduunyo bilaa problem waa impossible oo ilaahay baa yidhi adduunyada mashaakil baa yaalla lanabluwannakum buu yidhi ilaahay waadin imtixaani imtixaankuna ma aha dee xalwadi iyo alaab yar wanaagsan oo jecel lahay waa in imtixaan waan idin gilgili baa ilaahay leeyahay kuwii idinka horreeyey waa gilgilay zulziluu silzaalan cadiiban marka dulgariirka aan emotionkooda ku soo riday ma garanaysaa way dul qaateen marka kuwii dul qaadanaya inaan helno taasoo weliba haddana raja ahaan aad aragto wallaahi laba nin oo la dooranayay meerka iyo nin kale ayaa min 20 kun u foteeyay waa waxyaabaha rajo geliyay inay dadku aabahay goblantii ka sii yar socdaan oo ay u socdaan kii dhisi lahaa inay qualitiskaasina inay waddanka yaalaan ayaan arkay oo rajadu ay badan tahay haddana dhalinyar badan oo tababaro bilaashaan bixi jiray waxaan arkay dhalinyar aanan waddanka dhisi lahay barakallahu dhalinyar diyaar u ah ma ogtahay inay waddanka dhisaan oo ma ogtahay ku hamiyaya waddankooga oo wallaahi aanu markaan iyaga la hadlay waxaan odhan jiray ma ogtahay waniyo malaha aniga iyo wixii iga weyn baa yaa u liitay idinka ugu wanaagsan wax waddanka hogaamiya marka aad baad u mahadsan tihiin haddana dee dagaalku waa bilow weli waa 13 urur dagaalka ku jirnay waa sidaan u noqon lahayd ma ogtahay dee saddexda soo bixi doona siduu sheegay professor Xariir waxa weeyaan dariiqu uu dheer yahay wuxuu doonayaa in af kasta oo wanaagsan oo dad lagu soo jiidan karo ma garanaysaa inaan yeelano language kasta ama qualities kasta oo dadka lagu heli karo waa bini aadanku afku fahmaa afku fahmina waa af more human oriented oo dad dibad badan ku jirto oo waaniyo sidaas waxbaan dhisaynaa haddaan wax dhisaynana adigina haddaad dhisma rabto Somaliland inay dhisanto dee waa rag dhisay waa rag wada le saddexdii quality ee ahayd quality-ga qofku waa inuu xishoodaa lagu leeyahay waa inuu qofku xishoodo waa inuu wadani noqdo waa inuu limitation leeyahay oo wax limit gareeyaan ama diini ha qabato ama sida westernkan ha qabto miidiyaha ka boqo wadartii westernka waxaan anaa wasiiro way iscasileen leeyahay oo te miidiyaha iska baqayeen in saddexdaa intii lahaydba insha Allah waa wadahayna Cabdillaahi amaanta la igu sheegayna waxaan aanu runtii u malaynayaa isaga wadale waayo waxa weeyaan uu iga badan yahay uu iga quality badan yahay uu iga qabow yahay isagoo askari soo maray uu iga degan yahay ma garanaysaa in intaaba uu isagu wada leeyahay Cabdillaahi waayo waxa weeyaan waa marbaan cigaal u baahnayn waddanka qof loo dejiya marbaan walaalayn u baahnayn rayaale marba sida u soo socoto hadda waa kii kale u baahnayn hadda ee caqabadaha ay dhiga saari lahaa wabarakallahu fiikum wassalaamu calaykum
mar hadduu dee gudoomiyuhu hadlo oo hadalka dhammeeyo lagama daba hadlo laakiin waxaan inoo sheegayaa in hawshu si wanaagsan ugu dhammaatay kulamo dambana la isugu iman doono maxaa la idhahdaa dibna la isugu iman doono haddii allah wadinu qadaro qadadii baynu sugaynaa markaa waysi qadayn doonaa haddii allah wadinu qadaro gudoomiyana waxaan leenahay soo dhawow محمد عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم waxaan marka hore salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka waxaan kaloo salaamayaa marwooyinka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo dadkiina sharafta leh ka soo qayb galay halkan waxaan jecelahay inaan hadal badan oo dhan oo ay hadalkii wax dhamaystayba ogaaskii baa wixii laacday wixii galmay waxba kama tegin laakiin dhowr erayo gaagaaban baan doonaya in dhahdo marka hore waxaan leeyahay horta reer Somaliland hambaliyo 18 weli way sii muuqataa 18 May weli may dhammaan hambaliyadii iyo dabaaldegii weli waynu ku jiraa marka ilaahayna waxaan uga baryaynaa waqti wanaagsan in ku dambeyn doonto waxa kaloo halkan uga dareena baaq in ilaahay dagaalada ayakana inaga qaboojiyo iyo xasarada meesha ka taagan xukuumaduna inay xal keento oo hawshaasi laga soo naga dhamaato insha Allah hadalka uma kicin in khudbad dheer jeediyo laakiin waxaan erey ka oranayaa maxamed xasan sheekh muumin oo muddo dheer isnaqaanay Soomaalidu waxay ku maamaadaa rag laba u daran nin taagan oo la tirin iyo nin tagay oo aan la tabin halkan markuu naga tagay aad baan u tabnay intan diin ka bartay isaga waxay ugu dambeysay macallinkii quraanka intan diin isaga ka bartay diin halkaas uu ka taagan yahay de aqoonna waa aqoonyahan sare oo inuu ognataan mar kuma jiro imikana wuxuu ku darsay siyaasad loo fadhiyo maayo marka waxaynu ururada iyo xisbiyada u samaysanay inaynu kaga maaranno qabyaaladii iyo baalihii iyo wixii xumaa marka in dadku ay dhiirigeliyaan ururada iyo xisbiyada inay hana qaadaan oo ay meel fog gaadhaan waa waajibkeena inakaana mas'uulka oo aynu kaga maaranno isjiijiyadii qabyaaladii oo dadku isugu yimaado qofkii meesha geeya xisbigan ururkan horseed waxa weeye waa garanaysan Cabdilaahi Darawal iyo Maxamed oo soo raacay ya maxaa kale ku sheegi karaa labada shakhsiyadood meesha mariya marka in la dhiirigeliyo oo aynu ururadeenna dhiirigelino kana saaro imika jirto waxaad maqlaysaa waa marka tiraado mushkiladu waxa weeye waxaad maqlaysaa ururkii hebel in laga saaro ururkii hebel ma ururka marka la sameeyo waxa loo sameeyo dadka oo dhan jooguna wuu isbedelay imika doorashooyinkii ugu dambeeyay waxa footiyay dhalinyaradii oo 70% reerayna way ka tageen dadkii u footiyay waa garanaysaa marka in dadka la target gareeyo oo aynu dadkeena hore u socodsiino ayuu ku talniya hadalkana ma soo badinayo waayo xasanna ka miiga sheegaya xasan nadal waxaan u malaynayaa inuu farsamayaqaanku inoo helay heestii isagana markan siin doonaa si uu inoogu saaro heestii calanka waxaa sameeyey allah u naxariistee xasan sheekh muumin Sama
cabdiraxmaan hadlayay ayaa wuxuu aad u ammaanay gudoomiyaha ku-xigeenka dabeetana waxay ku soo dhacday libersiyaad barre aad u ammaanay dabeetana qolyaal joogjoogtiinada maxaad looga tagtay u dhahdeen waxaanu kaaga tagay hooyadii ammaan anna waxaan jecelahay inaan ammaano allaha u naxariistay xasan sheekh muumin oo dhalay gudoomiye ku-xigeenka dee waa ninka heesta inoo sameeyey sidoo kalena markii aan iskuullada ku jirnay dee qolyaga waaweyn waa garanayaan macalin cabdiraxmaan iyo wixii ay noo dhigi jiray wuxuu ahaa heesihii allaha u naxariistay xasan sheekh muumin gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed mujaahid cabdilaahi xuseen imaan darawalna dee saaxiibo lilaahi ayaan ahayn oo isagoo dhowr markii ay xisbigooda udub uu burburay ee uu siyaasadda ka yara haajiray in badan isagoo aan hadal ninkii ka soo hadiyey ayaan ahaa ee uu yidhi maxaa la idhahdaa waxaan doonayaa inaad siyaasadda dib ugu soo laabto dibna waa kaa ugu soo laabto insha allah waxaan u rajaynaynaa in uu ku guulaysto doorashooyinka soo socda mar kale waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye ku-xigeenka waxaan markana u yeedhi doonaa maxamed muuse awraac oo isna ka mid ah odayada magaaladan aynu joogno injineer maxamed muuse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan salaamayaa gudidii soo qaban qaabisay shirkan waxaan salaamayaa dhalinyaradii iyo haweenkii soo qaban qaabiyay xafladan aadka u quruxda badan leh waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka ururka horseed iyo dhammaan dadka martishaafta ah ee ka soo qayb galay intaa kadib dee taariikhdii gudoomiyaha iyo xafladdu waxay ahayd baa waa la sheegay inaynu hadalka ku soo celcelino maaha laakiin waa soo dhaweynaynaa isaga iyo inta la socotaba insha allah waxaynu u rajaynaynaa ilaahayna inuu u fududeeyo sida ay uga mid noqon lahaayeen hoggaanka dalka iyo xisbiyada dalka ka taliya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan maxamed muuse markii dhawada ee liiska qorayay ayaa aan xasuustay ama dee waxaa dumarkaa ku yar marka waxaan u yeedhi doonaa looma sheegin laakiin waxaan jeclahay in ay dee soo dhaweyn uun ka tiraahdo oo gola kafuul ah absolute marka waxaan u yeedhi doonaa faadimo suldaan maxamed suldaan faarax iibida sheegin laakiin meesha ka hadlay waad igu gaadeen marka hore waan salaamayaa dhammaan xafladan quruxda badan leh ee sharafta leh iyo dadweynaha sharafta leh ee isugu yimi taageerada xisbiga siyaasadeedka horseed gudoomiyahana waan salaamayaa marwadiisa iyo marwadii gudoomiyaha urur siyaasadeedka xaqsooro iyaguna fadhiya meesha dhammaantood dadweynaha waa wada salaamaya horta de waa mahadnaqun baan kolley anigu odhanaya waan ku faraxsanahay ilaahay insha allah bismillaahi karim waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo xisbigan ka dalka hogaamiya waan u qalmaan labada nin ee meesha hogaaminayaaba insha allah bismillaahi xaqna waa u leeyihin weliba dee annagu horta dan qoladan gobolka hawd ya dee beelaha somaliland oo dhan waxaan ka codsanayaa inay nagana doortaan ya xaq baan u leedahay ya waa markayagii baan maqli jiraa laakiin marka waa marka aad baan idin salaamayaa dhammaantiin somaliland guul baan u rajaynayaa insha allah iyo gobonimo ilaahay nabadgelyadana ha inoo adkeeyo ilaahay colaadaha iyo dhibaatooyinka taagan ha inaga dulqaado waan ducaynaynaa dadkeenni iyo dalkeenni insha allah bismillaahi kariim aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad bay u mahadsan tahay waxay noo soo jeedisay khudbad suldaan markana waxaan ku soo dhaweyn doonaa khadra xuseen dhalla waad
iga yar gaadhsiiseen anoo fadhiisanin baaba igu qabqabateen ya horta aad iyo aad baan idiin wada salaamayaa mudaniya marwooyinba aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida fiican uga soo qayb gasheen martiqaadka gudoomiye ku-xigeenka ururka horseed aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa horta kolley hawl badan baa inoo taallo imika waa bilow imika waa isbarashadeennii laakiin insha allah ururka daafurkiisiiba waa soo socda halkaasaa hawl badani ka soo baxaysaa dad badan oo fara badan oo reer somalilan maanta in badan baanu dad shacabka u garaacnay hadda annagaa naloo garaacaya idinka ku talagala marka tii aanu idiin samayn jirnay teedii baa laydinka filaya waa sidaa weeye annaguna diyaar baanu u nahay in wax allaaliya wixii dee aanu qaban karno aanu qabanno idinkana xagga codkiinnii iyo dadaalkii aanu markiina samayn jirnay teedii baa laydinka sugaya marka wax badan halkan oran maayo daafurkii baa inoo soo socda taasaynu waxyaabo badan isku weydaarsan doonaa aynu kaga wada hadli doonaa martidun baan jeclay inaan mahad celiyo kasoo qaybgalkiina sida uu sharafta leh noogu timaadeen aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum aad bay u mahadsantahay Dr. Xuseen Allah markana waxaan u yeedhi doonaa dadka inta ugu badan looma sheegin markaa waxaan jeclahay in wuxuu yidhaahdaan maxamed muuse ayaa markana u yeedhi doonaa haddii la ilaaho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الكيد دمان ولا وديري دبتانو halkan waxaan u joogaa mahadnaq aan ugu mahadnaqayo xafladan iyada maanta ku qabsoontay London marka anagoo waliba saaxiib ah maxamed oo aad iyo aad saaxiib u ah muddo badan oo wada soconay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya ka soo qaybgalka aan ka soo qaybgalay waliba anigu xafladan iyada ilaahay wixii dhibaato ah ee wadankeena haysta ilaahay naga qaboojiyo taasi waa to ugu muhiimsan marka anigu wax kale ku kordhin maaye waxaan dileeyahay si wanaagsan iyo xaflad wanaagsan يا طيارة يا حسن إلى ليلي waxaan u yeedhi doonaa markan khadar digle khadar بسم الله الرحمن الرحيم دمان شرفت قيمها مدن halkan isugu timi ururka horseed mustaqbalka insha Allah taala kamidna qoraya saddexda xusbi qaran ee ka soo baxaya jamhuuriyadda Soomaaliland rajo weyn shacabka Soomaaliland oo ku qaba biidnillaahi kariim dhammaan jamhuurka halkan isugu yimid taageerayaashiisa aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa tahiyatul islaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي وحان uga mahad celinayaa dhammaan hablihii qiimaha mudnaa ee soo qaban qaabiyay shirkan aynu ku soo dhaweynayno madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Sheekh Xasan Muumin waxaa kaloon iyadana halkan ka salaamayaa marwada mustaqbalka إن شاء الله تعالى قرنك جمهورية Somaliland مروة إفراح أو الله يهاي الله يحفظك إلهي هكو إلاليو الله هكو حفظيو إن شاء الله تعالى ما أنت كون هكسنا إلهي يسكو كنسمو بإذن الله كريم أديكو مروة قرنك جمهورية Somaliland وحان جودهان هل كان بلينا يا قرنك جمهورية Somaliland
oo ay ahayd xafladoodii 12aad sanad guuradoodii 12aad ee ay ku soo gaadheen dadaalka iyo sabirka iyo isku duubnida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo joogaan ba waxaan leeyahay ambalyo waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaya oo aan leeyahay garabkiina aanu nahay annagoo London joogna frontline-kan idinkula jirnaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee heeganka u ah difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hariya habeena u taagan waxaan leeyahay wallaahi garabkiina aanu taaganahay guul ayaan diirajaynaa billahi waxaan leeyahay oo aan ka codsanayaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo joogaanba waxaanu nahay aasaasayashii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland budbigayaashii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland astaanta qaranka raggii sameeyay sallallahu nabiyana Muhammad alayhi salatu wasalaam raggii iska lahaa raggii halganka ku suntanaa in badan baanu idin dul qaadanay habrihiina maanta waxaanu leenahay waa maalintii odayga haddii alla yiraahdo waxaanu insha Allah taala leenahay idinka bariimeena taa xaq baanu idinku leenahay mujaahidka ayuu u dhiibi doonaa biidnillaahi kariim mujaahid Muuse Bixi Cabdi wuxuu ku wareejin doonaa insha Allah taala xafladda Cabdullaahi Xuseen Iimaan Darawal biidnillaahi kariim iyo Maxamed Xasan Sheekh Muumin biidnillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guul insha Allah taala aad buu mahadsan yahay Khadar Cabdi Digle markaad siyaasadda soo galayso dhowr shay baad u baahan tahay markaad xisbi samaysatana kama sii badan markaad siyaasadda soo galayso waad madax dhaqameed adag leedahay adag oo waxaad u bilaynaysaa inaad ama xildhibaan noqoto ama golaha wakiilada kusoo biirto markaad urur siyaasadeed ku dhawaaqdana kama sii badan urur siyaasadeedku wuxuu u baahan yahay dhaqaale taageero iyo in af iyo adibba lagu xoojiyo Cabdullaahi Xuseen Iimaan waa nin dalka iyo dadka u soo halgamay waxaanu doonayaa inuu markiisa uu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intana oo dhan iyo in ka badanba waxaan rajaynayaa in hadhow toole marka ay kursiga noqoto deena shacabka gacanta geli doonaan oo ay barbar istaagi doonaan haddii Allah wada uu qadaro waana mid dhalada ka wada sugayo markana waxaan ku soo dhaweyn doonaa Ahmed Ismaan waxaan ku xigaa Cabdirasaaq Xariir baan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجح سمان أنا جايين هذا الكلام ويلا قاضي لكن كل واحد سودوينون مركو غورس وحن سودوين ياين حفلة تارنت هاي كدوم كحيانك محمد حسن شيخ مؤمن iyo marwada aan filayno inay noqoto marwada koowaad qaran ka saala sheegay Farax Maxamed Xuseen waxaana si gaar ah ugu mahadnaqayaa xubnihii soo qabanqaabiyay xafladan inay noo soo togasho ay hormuudka u hayd aniga farxad gaar ay tahay waayo Cabdullaahi gudoomiyaha urur siyaasadeedka Horseed Cabdullaahi Xuseen Iimaan waan inaan in badan soo wada shaqaynay waan inaan ku soo akhoray waan in gurigiisa wax ka cuni jiray oo ay maamo noo ahayd Ifraax dalkana meeshii laga soo bilaabay waxa hogaamin kara un waxa weeye qof garanaya halkuu ka soo bilaabay oo la xajaalo ka qaba waxaan idin xusuusin karaa mujaahid Cabdullaahi Xuseen Iimaan
dadku waa mujaahidun bay dhahdaan laakiin 3 marxaladood oo Soomaaliland soo martay saddexdaba uu kala soo dabaashay wuxuu ahaa nin halgankii qadhaadha hormood u ahaa oo u soo dagaalamay qabashadii dalkan hormood u ahaa wuxuu ahaa nin ka soo qayb qaatay nabadeyntii isaga la'aantiina haddii aanu hogaaminaynin wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladdii xilligaa jirtay dagaalo badan oo sokeeyo dalka ka dhacay may suurto gasheen haddii aanu cabdilaahi ahayn ka fahmaya sida ragga isu soo horjeeda loola hadlayo oo mujaahidiintiisa ahaa ta saddexaadna waxay ahayd dibadejintii dalka waayo dal burburay oo qaxoonti laga soo noqday ayuu cabdilaahi waxaa loo dhiibay wasaaraddii dibadejinta taasoo iyaduna uu hawl adag ka qabtay oo dad badan ay markhaati uga yihiin soo celintii qaxoontiyada iyo waxyaabo fara badan marka cabdilaahi sidaasuu u yahay nin xaq u leh in la garab istaago oo la taageero oo loo abaalgudo waxaa isaguna aan ku xigsiinayaa gudoomiye ku-xigeenkiisa maxamed xasan sheekh muumin isaguna dee abaal buu nagu leeyo abwaankeennii weyne xasan sheekh muumin baa dhalay anigu markaan madaxtooyadan ka shaqayn jiray xilligii cigaalo rag badan oo iskarana markaanu khamiista nasanaynaanu doonayna inaanu iska nasanno boorem aanu tegi jirnay guriga xasan sheekh muumin ayaanu tegi jirnay marka farxad gaar ay tahay inaan maanta aan halkan ay marwo faraxnay hor fadhido oo aan soo wada aasaasnay xusbigii ugu horreeyay dalka loo sameeyo udub oo aan howlwadeennadiisa ka ahaa number 3 sidaan u yaray hamoodina inaan daa yaray marka farxaddaas ayaanan maanta anugu aanan ayd kaga duwanahay intiina kale marka waxaan keliya oo aan kaga baxay hadalka dardaaran aan la dardaarayo qurbo joogta waayo mushkiladda dalka ka jirta waxa ay ka socotaa waa dadka qurbo joogta weeye dadka qurbo joogta ee aan tacab badani ka gelin marka aan meelaha ku doodaynay dadka qaar yidhaahdaan dagaal baa dhacaya amba xisbigana wax loo diidaya amba cayn kala dhacaya su-aal baa weydiiya waxaan idhaha 1988 xaggeed joogtay markaasuu igu idhaa carabaha markaasaan ku idhaa 91 halkeed joogtay markaasuu idhaa london markaasaan ku idhahdaa kama hadli kartid marka dadkaas way tabceen wixii aan ku daraynaa unaynu ha noqoto inaynu waxaynu halkan ka kobogaranno horumara inaynu dadkeena u gudbino laakiin qabyaaladda iyo isnaca iyo lacagta munaafaqada inaynaan dadkeena u gulbin waxaan rajaynayaan kusoo koobaya hadalka insha allah next time inaan ku kulmi doono xafladeena midhaafurka ee tan ka weyn ee aynu ururka u samaynayno waxaanan inoo rajaynayaa inaynu ku guulaysano hoggaanka dalka oo aynu hogaamiyaan cabdilaahi xuseen iimaan iyo maxamed sheekh xasan muumin aad iyo aad baa umahadsantii waad ku dheereeyey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay cabdirasaaq oo islaa wuxuu ka sheekeyn doonaa uun intii labadii kubixii xaggan ka soo xigay laakiin waxay noogu daray 80kii xaggan ka soo xigay markana waxaan u yeeri doonaa iyadoo ay noo hadheen labadii qof ee u dambeeyey oo ah gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha kulmiye ee UK waxaan u yeeri doonaa ka horeysiinayaa mujaahid khadar good khadar good waa aabbahay saaxiibkii ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya marka بسم الله الرحمن الرحيم قدومي كحيين كور سياسات كورسات محمد حسن شيخ مؤمن وقاس هارون محمد عبد الرحمن حسن أضياشا أبابولياشا حفلة قروح بدري نوسا أبابولي مرت شرفتك على حفلة قصة شيء لما واحد نقول سلام يا إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكبدين ما يوم إنهم بانوا صوك عيقورة ضد بدرنا واحد ليلة محمد مركن دل كيمي halkan weyn bili baag baan ugu tagi jiray isaga iyo aadan dheereeyeen Cabdiraxmaan iyo Maxamed Yunusi iyo halkan waqti halkaasaan ku bartay waan ku farxay runtii markii la igu yiri gudoomiye ku-xigeenka warsiyaadka warseed weeye moogta si kalena waxbaan isku nahayo Xasan Sheekh Muumin isku family baan hayraa markan garaadaystay tiyaatarka markuu Maraya ka ahaa Hargeysa
ilaa 98kii markuu boorama ka yimaado gurigaygu iman jiray gurigayga waan isku xidhnay walaal ilaahay baan nahay reerkoo ka mid ahaa muugta aabihii marka nin sidaa u garanayaanay isagana halkaasaan ku bartay waa nin wadaada waa nin aqoon-yahana waa nin dee alla ka cabsi badan madaxdeennana dee qofka ma garanaysa ilaahay ka cabsanaya inuu boosiishka yimaado way ku yaryihiin sida isagoo kale ayaa fiican waana ku farxay waxaanan ilaahay uga rajaynaya inuu ilaahay u fududeeyo qoladan reer belgubadana waxaan leeyahay waar dee lama gaadhina waa urur reebal haddii ururadaasi ay soo gudbaan idinkana dulqaad iyo waa marka iyagii dadka waa la xixitay iyo lahjad fiican dee dadka kula hadla moogta oo qabyaaladu ahayd ta kale codka waxaa ka doonaysaa ninka saylaca jooga iyo ninka ma garanaysaa laascaanood jooga waxaan ujeedaa laasgori jooga taasi waa intaa ilaahay waxaan idin rajaynayaa haddii dee uu soo baxaba oo nasiibkiisu keeno doorashadii ma dhowey haddii ururadaasi ay dee saddexda ka soo gudba hadduu ka mid noqdo ilaahay ciddii dee ugu talagal unbaa imanka doonta ee qasab maahe ilaahayna inuu idinka xilkiina idin fududeeyo cabdilaahi xuseen iimaanna siiba gobolka awdal boorame ilaa 82kii markii gaaska koowaad guutadii lixaad la keenay waa gobolkaasi xoog buu yaqaan markii dambe dubajidna dee hawlo badan oo rag badan oo reer boorame intooda badan way dhinteen ayuu wax weyn dee makarasa dibudejintii iyo contributionkii wax weyn buu gobolka awdal ka sameeyey oo nin ay garanayaan aad baan idin salaamaya aad buu mahadsan yahay khadar good oo ah allah u naxariistay aabbahay saaxiibkii waxay isku soo gaadheen un aada uma weynaa markaad kursi doonayso waxaa la yidhahdaa dadka yaa u xoogagaalsana waxaa la yidhahdaa qof dadka dawrsaday oo qofka dawrsaday reeraha markuu saa guri walba uu soo maro dee qaar baa ka furi waaya qaar baa muxuu ahaaye markaa nin kursi doonaya ama golaha wakiilad ha doona ama golo deegaan ha doona ama madaxweyne ha doone ayaa horta uga xoogagaalsan oo hadhow tole haddii ay dee maqnaasa uu ku guuldarraysto waxaa jira xaafado uu xitaa ka beerayo markuu ag marayo marka waxay rajaynayaan in inteenan horta aanu hadhow tole ka beeri doonin gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyuhu waxaan u yeedhi doonaa gudoomiyaha xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ee dalkan UK xariir xirsi adag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadka sharafta leh ee xafladan ka soo qayb galay marka hore waxaan u mahadnaqayaa hablaha dumarka xafladda wanaagsan inoo soo qabaqaabiyey waad mahadsantihiin inta markaan ka gudbo anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye UK xisbiga kulmiyana waxa ka go'an oo mar walba ka go'an in dimuqraadiyadaasi xoogaysato oo fido oo 10 sanaba mar la qabto in ururadu furmaan tii horena isagaa qabtay xisbiga kulmiye maantana isagaa qabtay nasiib wanaag waxaana soo baxay 10 urur waa ilaahay mahadii xisbiga horseed waa ka mid haddaan dib ugu soo noqdo gudoomiye ku-xigeenka محمد حاج شيخ مؤمن محمد شيخ حسن مؤمن وانا صاحبنا هاي وانا مقالة ودقنين وانا نحاول الصوت قبلناي وهي وانين ميرو الببوحينية ميرو البقدومي كحيانك وانين ببوحينية اقوان تنول هاي horta waa nin aqoon-yahan oo cilmiga beeraha bartay shahaadad koowaad iyo labaad bay ku qaatay dalkeenuna maanta beerihi xool u baahanyo aqoontaa loogu tegi maayo dadkeennii
diintii way ku xoogaysato maantana sheekh kastoo masaajid soo fadhiista isaga ka miisaan weyn maxamed xasan sheekh muumin isagaa ka miisaan weyn nin waloo sheekhu halkaa soo fadhiista maxamed xasan sheekh muumin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آد فرصة هذه كفر حسين الله يدي كفر حيو يعني قابضة هتسيد وراكسن سوء أجاسنتين وولي بدأ الدبر كوه وجوه الرجال ذلك الدبر كواحد قاعد يرسي بركة الوكيلة يخرج بعد سود هذا الشيء السيد لوجو سود ويل هيدين إيه موقتها حسب horseed oo wallahi markii aan dadkeenu evaluations wada sameeyeen la yiri waa ka kaliya ee caqabadaha inaga saari karo intii heesta ayaa xataa sheegtay tirooriyo Cabdillaahi dawid joogtaa ifraaxe runtii ninka heesta sameeyay nin Cabdillaahi yaqaano ahaa nin yani inaga saari kara hadii Ilaahay la qabto runtii Cabdillaahi marka hadalkaydu ku badin maayo أنا مد أمبان أوران إن شاء الله مدان أوران يا وحويين استمر علم هرت حسب جوار سيد عبد الله evaluation بدنو السمية وحن أركي إنه نك كلية يعني أمد أنت لوه جابيه له أمد أنت لوه جابيو نله وان الحشودة وان وحلوش يكرو وان اللي أوران كرو واتقلدن تاي وان اللي وانين كرو مدحت أفريقيا واتقالان بدي وحيو بديهين شقد وحبو شيكي مركا طلبات ما وقتها نكون راعينا يعني أنتي دبتك كتبي أو كندا يا أبدان مريكان أو أنت يدي ده وحبرتي دبتك كتبي يوم بيل وذا جوتي أو من عرقابه إلا يبو وقتها لو يعدها ayaa waxay dhaheen ninka markaan la soo shaqeynay waa ninka nagu yiri wani aan askari baan haydi ka aqoontii haye wax wada ta saddexaad ee ku dooranay horta aabahay tuula dhiban Allah u naxariistay xasan sheekh muumin laba nin buu yiri labada nin u sii tag oo igu salaan waa Cabdillaahi iyo dhaga weyde runtii oo de taasna waan ku raacay iyana ta afraad ee ku raacay waxa kamida عبد الرحمن وعلي بيقول ولي ونين ريركي لا يقصي برياسي حسق هذا markii aanu ninkii u fiirsaday waan Allah yaqaana waan qabow waan raxan badan lahayn waan degan waan qabow waan personality type-kiisu ay tahay tu cidba ayna ka tagi karin wallahi hada ninkii agjooga ay cidina ka وانين أنا أركي مركان وده كيني أركي واي وده كينو وحكبل عبي زيرو يعني يدو وده كوردني وده دوسي هاي والمعاونة بدل اللسين أيود ديمقراطية دي وجوه اللي تقاطي إن بدأ حوينا حدث كدورتان ولي دي جيبوتي واتقانا الصومالية يو إثيوبيا ويتاولي بايكرين يدو وده كدوسي هذا إن قاتان وضياشي لحظة كي جوي بلا هاي نود داي مركي نود تاجي نو وده دتر بلا وحسين ولا هذا مالنا يا إلى شعر الجوهر أنتي كله الله يرحمهم دي وراديات دي سلاك بلابنتي أو إلا هذا جرجورة كجرتو صعطة دي هلك إلهي بسنة الله في خلقه الدنيا بلا بروبلم ما impossible وإلهي بيجي الدنيا ده بشكل بيان لأن بلونك بيقول إلهي وهذا الامتحاني امتحان كنا ما هذه حلوة إيو أرابي يروي رسول الله وعين امتحان وأنا إنجلجلي بقى إلهي لي كويدي كهري وقلقلي زلزلوا زلزالا عظيما مركا بالجرير كان ايموشن كسور ردي ما قرانيسا way dul qaateen marka kuwii dul qaadanaya inaan helo taasoo waliba waxdana raja ahaan ad aragto wallahi laba nin oo la dooranayay meerka iyo nin kale ayaa min 20 kun u footay waa waxyaabaha raja galiyay inay dadku aabahay goblantii ka sii yar socdaan oo ay u socdaan kiidisi lahaa inay qualitieskaasidha inay wadanka yaalaan ayaan arkay oo rajadu ay badan tahay haddana dhalinyar badan oo tababaro bilaashaan bixi jiray
waxaan arkay dhalinyar aanan waddanka dhisi lahay بارك الله dhalinyar diyaar u ah ma ogtahay inay waddanka dhisaan oo ma ogtahay ku hamiyaya waddankooga oo wallaahi aanu markaan iyaga la hadlay waxaan oran jiray ma ogtahay waniyo malaha aniga iyo wixii iga weyn baa yaa u liitay idinka ugu wanaagsan wax waddanka hogaamiya marka aad baad u mahadsantihiin haddana dee dagaalku waa bilow weli waa 13 urur dagaalka ku jirnay waa sidaan u noqon lahayd ma ogtahay dee saddexda soo bixi doona siduu sheegay professor Xariir waxa weeyaan dariiqu uu dheer yahay wuxuu doonayaa in uu af kasta oo wanaagsan oo dad lagu soo jiidan karo ma garanaysaa inaan yeelano language kasta ama qualities kasta oo dadka lagu heli karo way bini aadanku afku fahmaa afku fahmina waa af more human oriented oo dad dibad badan ku jirto oo waaniyo sidaas waxbaan dhisaynaa haddaan wax dhisaynana adigina haddaad dhisma rabto Soomaaliland inay dhisanto dee waa rag dhisay waa raggan rag wada lee saddexdii quality ee ahayd quality-ga qofku waa inuu xishoodaa lagu leeyahay waa inuu qofku xishoodo waa inuu wadani noqdo waa inuu limitation leeyahay oo wax limit kareeyaan ama diini ha qabato ama sida westernkan ha qabto media ka baqo wadartii westernka waxaan wasiiro way iscasileen leeyahay oo tee media ka baqayeen in saddexda intii lahaydba insha Allah waa wadahayna Cabdillaahi amaanta la igu sheegayna waxaan aanu runtii u malaynayaa isaga wadale way wax weeyaan uu iga badan yahay uu iga quality badan yahay uu iga qabow yahay isagoo askari soo maray uu iga degan yahay ma garanaysaa in intaaba uu isagu wada leeyahay Cabdillaahi waayo wax weeyaan waa marbaan cigaal u baahnayn waddanka qof loo dejiya marbaan walaalayn u baahnayn rayaale marba sida u soo socoto hadda waa kii kale u baahnayn hadda ee caqabadaha ay dhiga saari lahaa wa barakallahu fiikum wa salaamu alaykum